Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee Afrika, waxayna ku taalaa Geeska Afrika. Xeebtani waxay dhererkeedu la'eg tahay 3,333 kiiloomitir. Xeebtani dhererkeedu aad og tahay waxay tiirsan tahay dhererka dhulka Soomaaliyeed oo idil. Waxaa jiraan xeebooyin iyo dekedo ay caan ku tahay, sida dekedda Muqdisho, Berbera, xeebaha sida Lido, Caluula, Berbera, iyo xeebooyin kale oo tiro badan. Waxaa jira kalluumo kala nooc ah sida kalluunka dalladu ah oo caalamka intiisa kale qaali ka ah oona laga helo badda Soomaaliya. Waxaa jiraan kalluumo noocyadooda kala duwan oo waqti walba laga hela badda Soomaaliya, taas oo loo isticmaalo qaab cunno iyo qaab sharxitaan ama meelaha loo dalxiis tago in la geeyo. Qubada waa waxay Soomaalidu aad ku isticmaasho ayna ku tahay caanka. Waxay u isticmaashaa qaab daweyd, sida inay isticmaasho hilibkeeda ama subageeda. Qubadu waxay Soomaalidu ugu wacdaa laba magac: diidin badeed mise qubo. Waxaa jiro kalluumo kale oo caalamka intooda kale ku yar, balse Soomaaliya ay ku tahay qani. Waxaana ka mid ah kalluumahani oo loo yaqaano kalluunka midabka haruudka leh. Kalluumada la gazacdeeyo kuwa ugu qaalisan ee loo yaqaano tunaha mise jeedalka. Soomaali waxay Ilaahay qani ugu dhigay waxyaalaha dabiiciga ah oo baddooda dhex heebaabaya. Weliba waxaa ku sii dhex jira shidaal. Kalluunkani waxaa loo suuqeeyaa caalamka oo dadka dalxiisayaashu waxay aad u isticmaalaan kalluunka sida gocodsada, jeedalka, yumbiga iyo kalluumo kale. Balse Soomaaliya nasiib darro ma lahan warshado waaweyn oo ugu faa'iideeya ummaddeeda Soomaaliyeed.